بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم. waxaan salaameynaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed. waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka, salaanta ciisada iyo sharafta leh. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa xafiiska macadka midnimo Institute for Political Science and Knowledge. waa macadka ugu horeeyay geeyiga Soomaaliyeed laga furo. macadkaas oo ku salaysan basekiisa uu yahay qaab systematic online loo dhigan doono. waa macad runtii aad iyo aad runtii waxbarashadiisu ay qualified u tahay. waa macad aan aaminsanahay in wax ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyaradu ay wax badan ay ka bedeli doonaan insha Allah, qaab nololeedkooda, waxbarashadooda, standardkooda iyo qaabka runtii qofku wax ku baran karo. waa macad runtii aad iyo aad waxa weeye dadka dhigi doona ay yihiin dad khubaro ah. dadka ay dhigi doonaan ay noqon doonaan macallimiin waxa weeye ajaanib iyo Soomaali isugu jira. waliba Soomaalida waxa way professorada ugu caansan oo Soomaalida inay lanjaro ka bixin doonaan macadkan midnimo Institute for Political Science and Knowledge. sidoo kale macadku waxay hadda isqoristiisu ka socotaa dabaqa sare ee Mount Mall. runtii dad badan oo hadda soo diiwaangeliyay baa jira. runtii waxbarashadu waxay bilaabanaysaa bisha koowaad kowdeeda 2019 sanadka cusub waxbarashada lagu bilaabi doonaa. runtii koorsooyinka lagu bilaabi doonaa runtii waan soo dejinay, waan idin sheegi doonaa. koorsooyinka ugu horeeya aan waxa weeye aan ugu talagalnay dadka in aan la wadaagno waxa ka mid ah koorsada diploma oo political science-ka, computer science-ka, human resource management-ga, nutrition-ka, public health-ga, waxaasoo dhan health-ga la isku yiraahdo, journalism-ka, waxaasoo dhan baan bixin doonaa haddii Allah idmo. sidoo kale macadku wuxuu idin ballan qaadayaa haddii uu Allah idmo in waxa weeye concept uu sameyn doono waxa weeye wax isdaba jooga ama tababaro isdaba jooga, kuwaas oo la rabo skillsku inay dadku waxa weeye aqoontooda iyo waxa weeye heerkooda aqooneed sida kor loogu qaadi lahaa. sida waxa weeye trainer badan aan qaban doono tababar ku saabsan qofku sidoo wax u baran karo, sida asagu self study qofku wax ugu baran karo, sida qofku uu horumarka ugu gaari karo habkiisa waxbarasho horumarka uu sameyn karo. insha Allah traineradan qaban doono waxay noqon doonaan kuwo farsamo la xiriira, qaabka farsamooyinka kuwa la xiriira, kuwa waxa weeye finance iyo accounting la xiriira, kuwa nafsiyan qofka bini aadamka wax ka faa'iidayo kuwa la xiriira. insha Allah hadduu Allah idmo waxaan waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynayna macadkaasi inuu yahay macad bilaashan. qof waxa weeye lacag laga qaadi doono iyo qof wax kale laga qaadi doono ma jiro. hadda waxa weeye liiskana aan hayo waxa weeye ardaydiisa soo diiwaangelisay oo waxa weeye macadka ku soo biidhay waxa weeye waa dad aan gaari karno, dad aad iyo aad u fara badan. marka waxaan idinka codsanaynaa qof kasta oo waxa weeye Soomaaliya in uu waxbarashada ka faa'iideysto. waxa weeye waxbarasho runtii waxa weeye qualified waxbarasho wax badan laga faa'iidayo, waxbarasho waxa weeye aqoon ku salaysan, waxbarasho aan is oran karno qofka Soomaaliga iyo qof kasta oo dhalinyaro wax badan buu ka faa'iidi karaa. runtii macadkeenu sidoo kale waxyaalo uu ka shaqeyn doono waxa ka mid ah counseling inuu sameyn doono si joogto ah inuu waxa weeye kambaniyada iyo organization-ka oo la talin qaybta HR-ka human resource management inuu u sameyn doono waaxda xafiisyada. in waxa weeye kambaniyo badan oo nala soo xiriiray oo waagi hore xataa aan HR ku shaqeyn jirin ee hadda xafiisyo samaysteen baan xataa aragnay. marka waa Ilaahay mahadi. waa macad aan is oran karno waxa weeye gaar ahaan waxa weeye shacabka wax badan buu ka faa'iidi karaa. waxa weeye aqoontoodii baanu kaabeynaa, waxa weeye afkoodii Soomaaliga ah waxa weeye insha Allah barnaamijyo aan bixin doono oo aynu waxa weeye luqadda Soomaaliga aan ku dhisi doono waa insha Allah jiri doono haddii Allah idmo. waxa weeye abwaano Soomaaliyeed baan waxa weeye buugaagtooda aynu qorno baan soo bandhigi doonaa insha Allah. haddana waxaan jecelnahay insha Allah habeen dambe oo bisha ku beegantahay 16 bisha 2018 in aanu sameyn doono wax la yiraahdo sequence inaanu sameyn doono inaanu insha Allah baraha bulshada page-ka macadka midnimo Institute for Political Science YouTube-ka inaanu soo gali doono barnaamij la xiriiri doona qaabka waxa weeye systematic qaab la xiriiri doona habka loo ganacsado, habka qofku waxa weeye ganacsigiisa uu kor ugu qaadi karo, habka qofku ganacsigiisa iyo xisaabaadkiisa uu asagu self study u samaysan karo, qaabku uu xisaabsan karo, qaabka waxa weeye standardka markii la fiiriyo accounting-ga oo kale standardadiisa, principle-kiisa, double accounting-giisa insha Allah iyagoo waxa weeye
tafatiran iyaga waxa way barnaamijyo ku salaysan qaab loo sharaxay macallimiin qualified insha Allah waan soo galin doonaa habeen kasta oo jimcaha waxaan idin ballan qaadanayaa inaan barnaamijka YouTube-ka iyo page-ka aan soo dhigi doonaa insha Allah baraha bulshada waa si free qof kasto ganacsada qof kasto dhalinyaro oo waxa way jaamacadda accounting ka barta qof kasto xiiseenaya waxbarashada xisaabaadka insha Allah qaab ahaan baan soo galin doonaa hadduu Alla idmo sidoo kale waxaa jiri doona barnaamijyo uu ka shaqeyn doono macadku sida waxa weeye sida waxa way barnaamijkan for example bookshop-ka ama buwaatan read liiraado buwaatan sida qaab buwaatan loo akhriyo buugaagtan waxa way loogu akhriska badan yahay buugaagta runtii aan wax badan ay dadku bulshada Soomaaliyeed wax ka faa'iidi karaan insha Allah iyaguna inaan si waxa way sequence aan u soo galin doono baraha bulshada sida anagoo review ku soo sameeyno book kasta waxa uu ka hadlayo book kasta qiimaha uu leeyahay price-kiisa dadku waxa ay ka faa'iidi karaan insha Allah macadku book kasta uu soo bandhigo ilaahay idankii waxa way waan la heli doonaa waan idin soo bandhigi doonaa qofku u baahan waa soo dalban doonaa anaguna waa siin doonaa haddii Alla idmo sidoo kale macadku wuxuu insha Allah waxa way si basically wax u qaban doonaa in uu had iyo goorba uu qabto training tababaro inuu qabto dadka waaweyn waxa weeye dhalinyarada haweenka insha Allah inuu qaban doono iyaguna waxa weeye systemkoodii iyo qaabkii loo maamuli lahaa iyo waqtiga la qaban lahaa iyo professorada dhigi doona oo ka bixin lahaa lagjarada insha Allah inuu diyaarino qaabkii systemkii systematic analysis-kii aan u diyaarin doono insha Allah sidoo kale waxay dhici kartaa barnaamijyo qaab online ahaan waxa way page-ka lagu soo xiri doono insha Allah iyaguna ay jiri doonaan haddii Alla idmo barnaamijyadaas oo ku salaysan waxa way trainino sida qofka waxa way interview uga bixi karo sida qofku uu shaqo ku heli karo sida qofku ganacsi ku abuuran karo sida uu qofku asagu waxa weeye sole solution ku noqon karo qofku sidee ganacsi u abuuran karaa sidee qofku shaqo u abuuran karaa qofku sidee NGO u abuuran karaa insha Allah waxaas oo dhan waxa way qaab online ahaan u bixin doonaa casharada iyo waxa weeye nidaamku macadku ku shaqeyn doona hadduu Alla idmo waxa weeye macadka qaab systematic online loo dhigan doonaa ardaygu haddii Gmail leeyahay haddii WhatsApp leeyahay insha Allah waxa weeye WhatsApp group WhatsApp discussion baa sameyn doonaa haddii Alla idmo groupkaas waxa weeye casharada loogu diri doonaa emailkiisa ama Gmailkiisa casharada loogu diri doonaa insha Allah casharo waxa weeye tafatiran oo qualified oo macallimiin khibrad iyo tayo iyo ula insha Allah ay dhigi doonaan haddii Alla idmo waa macad waxaan xisroon karnaa wax way bulshada Soomaaliyeed wax badan ka faa'iidi doonaan haddii Alla idmo waxa way qofku asagoo gurigiisa jooga asagoo xafiiskiisa jooga asagoo qaybtiisa waxa way ganacsigiisa jooga wax kasta baran karaa hadda waxbarashada nidaamka waxa way waa la fududeeyay waxa way waxbarashada ama macaahidda laba qayb baa loo dhigtaa qofku inuu waxa way waxbarashada si toos u dhigto oo casharadii uu qaato oo halka waxa way halkii class activity-giisa wixiisa halka ku qaato iyo qaab online ahaan in wax loo bixiyo casharkii ardayga in casharkiisa emailkii ama WhatsApp-kiisa loogu diro kadibna video-ga loo raaciyo review-wi casharkii muuqaalkiisii oo sharaxan haddii waxa way theory noqon lahayd haddii practical noqon lahayd casharkiisa oo sharaxan waxaan isku dari doonaa cashar kasta iyo video-giisa isku dari doonaa insha Allah hadduu Alla idmo waxa way waa barnaamij waxa way ku salaysan yahay kaliya waxa way sidee bulshada aan wax u tari karnaa haddaan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed waxaan anaga naga go'an basically markaynu nahay dhalinyaro inaan anagu waxaan baranay inaan waxa way dadka aynu gaarsiino insha Allah macad kastaan hore idinku sheegay waxa aasaasay dhalinyaro koox dhalinyaro aqoon-yahan ah kuwaasoo fikirkoodu iyo analysis-koodu aha war sidee anagu bulsho wax bari karnaa war sidee bulsho wax baratay aynu la jaan qaadi karnaa systematic habka casriyeysan hadda dadku ay wax u bartaan ama dalalka casriyeysan oo u jeedo hadda wax wada bartay insha Allah sidee waxa way wadankeedu ula jaan qaadi karnaa wadankeenu sida uu ogsoonahay 80% dalkeenu waa dad dhalinyaro u badan marka dhalinyaradaas waa in loo sameeyaa waa in shaqo abuur loo sameeyaa waa in job analysis loo sameeyaa waa in job description loo sameeyaa waa in qofku waxa way la jiheeyaa oo lagu jiheeyaa aqoon qofku sidee wax soo saaran karaa qofku sidee wax way bulshada wax u abuuran karaa qofku sidee u noqon karaa qof wax bartay kadibna dadkiisa wax ku celiyay insha Allah taasi haday ay dhacdo dadkoo dhan ay wax bartaan adduunka qofka dalka markii la qiimeynayo waxa lagu qiimeeyaa war dalkaas dadkiisa wax ma barteen qofka anagu markaynu fiirino natural resources-ga war qofka khayraadkiisu dalkan khayraadka uu leeyahay muxuu yahay khayraadkiisu dalka macdan iyo waxa way biramo noqdaan dalkan khayraadkiisa waxa noqdo waa dhalinyaro iyo dadka wax bartay way marka insha Allah hadduu Alla idmo
waxaan u ballan qaadaynaa waxa way bulshada Soomaaliyeed daafaha dunida caalamka dalka iyo dibadda ha joogaan waxaan naga go'an in waxa way waxbarashadeen waxay noqoto waxbarasho qualified in aan qof kasta asagoo booskiisa jooga musishikiisa jooga inaan waxbarashadiisa oo waxa way halkaan ugu geeyno insha Allah marka waxa way ardaygu waa inuu shuruudaha soo maraa ardaygu waa in uu maraa shuruudaha sharciga waxa macadku leeyahay haddii aan principles iyo goal activity uusan jirin waxba noo hagaagi mayaan waa inuu sharci jiraa waa inuu nidaam iyo kala dambeyn jiraa marka waxa looga baahan yahay qofka waxa weeye ardaygu waa inuu sharciga soo maraa kaliya nidaamka macadku waa inuu soo diiwaan geliyaa lambaradiisa soo waxa way diraa waxa way information sax ah goobta uu joogo magaciisa kuliyada u baahan yahay iyo insha Allah hadduu tarobeeno ka qayb galayo waa in insha Allah waxa way halkaas waxa way nagala soo xiriiraa annaguna waxa naga go'an waxa way sida aan waxa way dalkeen iyo dadkeen aan wax baran lahayn waxaan aad iyo aad u salaameynaa waxa way dhalinyarada istixla qaantay macallimiinta waxa way nala shaqeynaya oo dal iyo dibadba jooga waxaan leenahay Allah idin barakeeyo Allah idin sharfo Allah idin karaameeyo waxa way waxaad wax u qabateen waa bulshadiina Soomaaliyeed insha Allah waxa way arday badan oo aan helin waxbarasho arday badan iyo waxa way dhalinyaro badan iyo haween badan iyo gabdho badan ayna u suurtagelin in ay waxbarashada ay xaadiraan oo goobaha waxbarashada ay tagaan duruufo jira awgood waxaan u ballan qaadanaynaa in anaga noo soo dhawaadaan in anaga noo imaadaan qof kasto Soomaaliyeed anagu waa soo dhaweynaynaa waxa way xafiisku ama macadku meelo badan buu xafiisyo ku leeyahay Muqdisho Hargeysa Garowe Boosaaso meelo badan buu ku leeyahay insha Allah sidoo kale xafiiska waxa way macadku waxa way wuxuu ka shaqeyn doonaa xafiisyadiisa gaarka in waxa way ardayga iyo qof kasto la talin u baahan in la talin doono insha Allah haddii ay dhibaato haysato ardaygu haddii uu qofku problem jiro haddii qofka ganacsigiisa laga caawinayo haddii qofku ay ku timi problem ama family insha Allah khubura la joogto psychologist-ka wax ka bartay culimada oo wax bartay waa la joogo insha Allah arday kasta waxa ka caawin doona waxbarashadiisa haddii problem jiro haddii wax kale jiraan insha Allah waxaan isku dayeynaa waxa way inaan xalin doono insha Allah sidoo kale macadku waxyaalaha uu furi doono wax ka mid ah maktabad ama library weyn insha Allah waxa way buugaagta caalamka lagu kala gadi doonaa insha Allah buugaagta dalka kuwa dalka iyo dibadda insha Allah waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan ku soo dhaweynaynaa macadka midnimo Institute for Political Science and Knowledge. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.